kulanti wacan daawadeel ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 19 bisha 6 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah faahfaahin laga helay toogasho ka dhacday Kismaayo iyo howlgal xoogan oo saaki magaalada ka socda hay'adda NISO laga eriyay 5 xubnood oo la sheegay inaysan u qalmin kasi mid ahaanshaha hay'adda waxaan idin soo gudbin doonaa sababta loo eriyay xubnahaasi sargaal ka tirsan ciidanka Amisom oo sabab la yaab leh isugu daldalay Muqdisho iyo baaritaan socda ciidanka Liyu Police oo shacab ku laayay deegaanka Qabri Dahar agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya oo arrimo xasaasi ah kala hadlay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya madaxweyne Waare oo bixiyay diyada taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan ee lagu dilay dagaal ka dhacay magaalada Beledweyne iyo xildhibaan Dhakool oo shaaciyay cid ka dambeysay xarigiisa iyo arrimo murugo leh oo kala soo kulmay xabsiga intaasi daawadyaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo fidsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe janalkan sidoo kalena qaybta gambaleelkana taabo si ay ku soo gaaraan warbixinada iyo waliba xogaha muhiimka ah inuu halkan soo gelino markana ku soo dhawaada warkii oo fidsan faahfaahin ayaa ka soo baxaya toogasho ka dhacday magaalada Kismaayo iyadoo saakina howlgal xoogan ay magaalada ka wadaan ciidanka amniga askari ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa lagu toogtay gudaha magaalada Kismaayo sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan warbaahinta goobjoogayaal ku sugan magaalada Kismaayo kooxaha hubeysan ayaa toogtay askariga oo la sheegay inuu ku sugnaa bar control ay leeyihiin ciidanka booliiska Jubbaland askariga ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa ciidanka booliiska Jubbaland isla markaana uu shaqo ku jiray xilliga la dilay ciidanka booliiska Jubbaland ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay waxaana ay halkaasi ka bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii dilka geystay oo goobta ka baxsaday waxaa magaalada Kismaayo ku soo badanaya dilalka qorsheysan waxaana la ogeyn cidda sida rasmi ah ugu dambaysa sidoo kale xalay waxaa magaalada Kismaayo lagu dilay Allaha u naxariisay nabadoon caan ka ahaa deegaanada Jubbaland oo lagu magacaabi jiray Cabduqaadir Ibraahim Xasan kaas oo kooxa aan la garanayn ay qaarijiyeen wasaaradda amniga maamulka Jubbaland ayaa sheegtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto kooxaha dilka ka geystay magaalada Kismaayo waxaa laga dareemayaa ololaha doorashada madaxweynaha Jubbaland oo sanadkan gudihiisa ka dhacaysa magaaladaasi dhinaca kalena hay'adda NISO ayaa laga eriyay 5 xubnood oo la sheegay inaysan u qalmin kasi mid ahaanshaha hay'adda wareegta ka soo baxday xafiiska hay'adda ayaa qeexday in 5 xubnood oo ka hor yimid hanaanka shaqo gudasho iyo danaha qaranka aysan u qalmin kasi mid ahaanshaha NISO laguna aamini karin shaqo qaran oo xasaasi ah warkan lagu daabacay barta Twitter-ka ee hay'adda wali laguma shaacin magacyada iyo xilalka ay hayeen shakhsiyaadka laga saaray hay'adda wareegta maanta ka soo baxday hay'adda ayaa qeexday in 5 xubnood oo ka hor yimid hanaanka shaqo gudashada iyo danaha qaranka aysan u qalmin kasi mid ahaanshaha NISO laguna aamini karin shaqo qaran oo xasaasi ah ayaa lagu yiri war lagu daabacay barta Twitter-ka ee hay'adda ma shaacin magacyada shakhsiyaadka shaqadooda loo bogin ee laga saaray hay'addaasi hay'adda NISO ayaa horey looga saaray taliye ku-xigeenkii Cabdalla isla markaana laga dhigay darajadii inkastoo uusan magacaawneen agaasimaha hay'adda haddana waxa ku siman ka Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah taliye ku-xigeenka hay'adda tan iyo markii hay'adda NISO la wareegay Faad Yaasiin waxa la soo warinayaa in isbedel weyn ku yimid hay'adda oo dhanka horumarka waxayna fashilisay dhagar badan oo Al-Shabaab ay u maleegeen shacabka Soomaaliyeed sargaal ka tirsan ciidanka Amisom ayaa sabab la yaab leh isugu daldalay magaalada Muqdisho iyadoo baaritaan uu socdo sargaal ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee Amisom gaar ahaan kuwa Uganda ayaa isku dilay magaalada Muqdisho sida ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi wararka ayaa sheegaya in sargaalkan uu isdilay kadib markii uu toogtay askari kale oo ay saaxiibo ay ahaayeen kana wada tirsanaayeen howlgalka Amisom ee Soomaaliya afayeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka Uganda Richard Kramer ayaa xaqiijiyay warkan waxaana uu sheegay in haatan ay wadaan baaritaan ku aadan dhacdadaasi lama shaacin ilaa hadda magaca sargaalkan iyo sidoo kale askarigu uu dilka u geystay ma ahin dhacdada mid ku cusub Amisom balse marar badan ayaa la soo wariyay sheekooyin cinkaan oo kala ah bishii May ee la soo dhaafay ay ahayd markii xerada xalane ee magaalada Muqdisho lagu dilay ilaa 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka Amisom kadib markii uu dhexmaray iska horimaad kooban ma jiro wali war rasmi ah oo Amisom ay ka soo saartay dilkan marka laga soo tago hadalka kooban ee ka soo baxay dawladda Uganda taliska Amisom ayaa inta badan qariya xaqiiqda iyo dhibaatooyinka ka jira howlgalkooda sababo military darteed taasi oo mararka qaar keenta in warbaahinta aysan xog badan ka helin waxa
ka dhaca xeryahooda. geesta kalena ciidanka Liyu Police ayaa shacab ku laayay deegaanka Qabri Dahar. ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ee loo yaqaan Liyu Police ayaa dad shacab ku dilay deegaanka Qabri Dahar. dilalka shacabka ee ciidanka ay geysanayaan ayaa xoogeystay maalmihii u dambeeyay. dad uu ku jira ganacsada Sayid Daahir Sheekh ayaa maanta ay ciidanka Liyu Police ku dileen deegaanka Qabri Dahar. wali lama aasin marxuumka waxaana arrinkiisa soo dhex gashay safaaradda Norway maadaama uu dhalasho Norway u wato. Qabri Dahar waxaa sidoo kale gaaray hoggaanka nabadgelyada Cabdi Caadil iyo wasiirada dowlad deegaanka ka socda. agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya ayaa arrimo xasaasi ah kala hadlay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya. agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Dr. Nuur Adeeriye Xirsi Fursade ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya mudane Ridson Senenga iyo waliba danjirayaasha dalalka Ingiriiska mudane Ben Fender iyo Talyaaniga mudane Carlo Campanelle. kulankan oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha ayaa laga wada hadlay xoojinta xiriirka iyo mideynta dadaalada wax ku oolka ee ku qotoma dowlad dhisidda iyo dib u dhiska dalka. agaasimaha madaxtooyada ayaa la wadaagay danjirayaasha dadaalada joogtada ee dowladda ay ku bixinayso kobcinta dhaqaalaha, amniga iyo dib u heshiisiinta, isagoo tilmaamay inay muhiim tahay in lagu gacan siiyo shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed sidii ay uga gudbi lahaayeen caqabadaha ku xiran. ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa uga warbixiyay agaasimaha madaxtooyada doorka ay ku leeyihiin taageerada iyo hirgelinta barnaamijyada bini'aadanimada, mashaariicda iyo waliba adeegyada horumarineed ay gacanta ka geysanayaan. dhinaca kalena madaxweyne Waare ayaa bixiyay diyada taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan ee lagu dilay magaalada Beledweyne. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa bixiyay diyada taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaanle dhexe Maxamed Macow oo dhawaan lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka Kalabayr ee gobolkaasi. taliyaha ayaa ku dhintay iska horimaad dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Hirshabelle iyo maleeshiya taabacsan gudoomiyihii xilka laga qaaday ee Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. siday ogaaday shabakada wararka Soomaalida, madaxweyne Waare ayaa shalay bixiyay diyada marxuumka waxaana uu ku wareejiyay odayaal ka socda eheladiisa. dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada ayaa ku waramaya inay fashilmeen kulamadii ka socday magaaladaasi ee lagu xalinayay xiisada maamul ee ka taagan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. kulamadan oo ay wadeen odayaasha dhaqanka, xildhibaano iyo wasiiro lagu dhexdhexaadinayay Hirshabelle iyo Yuusuf Dabageed ayaa la sheegay in lagu kala booday. wararka qaar ayaa sheegaya inuu Dabageed uu diiday inuu sameeyo wax tanaasula isla markaana uu aqbalo xilka qaadistii lagu sameeyay, taasi oo keentay in ismariwaa ay ku soo dhamaadaan kulamadaasi. sidoo kale warar kale oo aan helnay ayaa ku waramaya in dhankiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle uu ka biyadiiday qodobada qaarna gaar ahaan inuu ka laabto go'aankiisa hore xilka qaadista. xiisada ayaa haatan sii xoogeysanaysa waxaana jirin isku soo dhawaansho labada dhinac. dowladda Soomaaliya guddi u saartay arrintan ayaa waxa wali muuqan dadaalkii looga baahnaa ee ka hortagga xiisadaasi. xaaladda magaalada Beledweyne ayaa hadda marka la eego waxay tahay mid kacsan, waxaana saacadihii la soo dhaafay ciidamada Amisom gaar ahaan kuwa Djibouti ay bilaabeen inay isaga baxaan magaaladaasi. ciidamada ayaa shalay ilaa maanta si tartiib u baneynaya fariisimo ay ku leeyihiin gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ugu dambeyntiina xildhibaan Dhakool ayaa shaaciyay cidda ka dambeysay xarigiisa iyo arrimo murugo leh oo kala kulmay xabsiga. xildhibaan Dhakool ayaa shalay markii ugu horeysay la hadlay warbaahinta kadib markii shalay xoriyadiisa ay u soo celisay xukuumadda uu hogaamiyay Muuse Biixi Cabdi. Dhakool ayaa sheegay in habeenkii laga soo xirayay gurigiisa loola dhaqmay si aan dowladnimo ahayn oo baalmarsan sharciga, balse waxa uu xusay in intii xabsiga uu ku jiray loola dhaqmay si wanaagsan. xildhibaan Dhakool ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaysan xiran beel gaar ah balse ay xirteen shakhsiyaad uu tiradooda ku sheegay 7 nin oo nacbaa ay ka dambeeyeen xarigiisa. ummadda reer Somaliland iyo waliba deegaanadayda aan ka soo jeedo mid baa u sheegaya waxaan u sheegayaa aniga qabiil ima xiran, isaaq ima xiran, habar awalna ima xiran, Sacad Muusena ima xiran. xarigaygaas 7 nin oo awalba inacbaa sabab u ahayd iminkana meel qeyr leh ayuu alla dhigi doonaa ayuu yiri xildhibaan Dhakool. ugu dambeyntii xildhibaanka waxa uu u mahadceliyay dhammaan cid kasta oo ka xumaatay xarigiisa kana qayb qaadatay inuu dib u helo xoriyadiisa, isagoona si gaar ah ugu mahadceliyay siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani. waxa uu sidoo kale u sheegay xildhibaanku inuu cafiyay dadkii sida qaldan uga falceliyay xarigiisa, isagoona xusay in injineer Faysal Cali Waraabe oo ka mid ah dadkii ka hadlay uusan cafis u baahnayn oo uu yahay nin waalan oo marfuucul qalam ah oo aan dambi lahayn. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta. fadlan subscribe sar channelkan, sidoo kale qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan xogaha iyo waliba warbixinada xasaasiga aynu halkan soo gelino. waana mahadsantiin.